canfartu uma Soomaaliba. barnaamijkani waxaan ku eegayaa canfar ma Soomaaliba iyo macluumaadyo la xiriira taariikhda canfarta. anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa tarjumay idilana socodsiinaya. guud ahaan canfarta waa mid ka mid ah Kushetiga kuwaas oo dega bariga Afrika. luqadda iyo dhaqanka oo ah Kushetik ayay la wadaagaan ama ay uga shaabaxaan Soomaalida iyo Oromada. waa qolo aaminsan dhaqamada Kushetiga oo aad uga adag waxa ayna raad imika u yihiin Kushetiga qadiimiga ahaa. Soomaalida iyo canfarta ayaa waxa ay wadaagaan dhaqanka iyo luqadda waxa ayna ka soo wada askumeen boqortooyada Kush. qowmiyado ayaa ka farcamay halkaas oo ay Soomaaliya qayb ka noqotay qayb kamid ah boqortooyada Kush. canfar iyo Soomaali ma wadaagaan jinsiyadda dhulka laakiin dhaqanka iyo luqadda ayaa waxa ugu dhow oo ay wadaagaan ah. midan ayaa muujinaysa in ay ka soo wada farcmeen boqortooyada Kush oo taariikh aad u fac weyn ah ku leh geeyaga Afrika. xaqiiqooyinka qowmiyadaha Kushetiga ku abtirsada ayaa waxa ay ka wada siman yihiin hanqal u taaga iyo beegsiga Soomaalida dhulalka ay degaan. asalka iyo taariikhda Soomaalida ayaa badanaa waxa lagu sheegaa in ay ka soo jeedaan Carabta balse waa ay ka fog tahay xaqiiqda. xaqiiqda ayaa ah in Soomaalidu ay ka tirsan tahay boqortooyada Kush. laakiin sohdimaha aynu la wadaagno dalalka deriska ayaa qaar ka mid ah dhulalka Soomaaliya uu gumaystuhu u raaciyay Itoobiya iyo Kenya. Soomaalidu ka hor gumaystaha ayay ku noolaan jireen dhulkan Soomaaliya iyadoo abidba loo soo hanqal taagi jiray sheegashada iyo beegsiga dhulalka Soomaaliya, dhulalkaas oo ah dhulalka ugu kheyraadka badan Afrika. Itoobiya waa madal qowmiyado badan ay martigelisay kuwaas oo farac ahaan ka soo jeeda Kush. laakiin ujeedada guud ay tahay in Soomaaliya oo ah dhulka ugu hodansan gobolada ku teedsan geeska ay u soo tartamaan kuwii u dhawaa. qorshayaasha ma ahan intaas oo kaliya waxa garab ku siinaya ajaanib si ay Soomaaliya ay u noqoto wadan dadkiisa iyo dhulalkiisa la kala jarjaray. waa tan imika ka jirta Soomaaliya taas oo loogu madaleeyay siyaasadda federaalka. laakiin xaqiiqda waa ay ka fog tahay mana ka tarjumaysa marnaba inay Soomaaliya isku keento federaal iyo wixii la mid ah. Soomaalidu waa dad isku diin iyo isku dhaqan ah mana jiraan wax kale ee shaki ah ee keeni kara federaal iyo wixii la mid ah. laakiin xaqiiqda jirta ee qorshaha federaal ayaa ah in Soomaaliya lagu kala geegeeyo dadkeeda iyo dhulalkeeda lagu kala saaro.
gobolka ay ku nool yihiin canfarta waxaa badanaa loogu yeeraa xagalka canfarta waa dhul aad u kooban tani waa mid ka mid ah meelaha ugu kulul Afrikada uguna qalalan marka loo eego dhulka oo idil haddana sidoo kale heerkulka ugu hooseeya ee dhulka ila wareedyada qaar ayaa sheegaya in heerkulka dhulka ay ku nool yihiin uu yahay kan ugu kulul dunida inta badan dhulkooda waa guryo saxare iyo cusbo oo ay jareen dildilaacyo waaweyn oo ka imaanaya kuleylka qoraxda ila wareedyo hore waxa ay ku tilmaameen deegaanka canfarta ay ku nooshahay Danakilia dadkuna ku tilmaameen Danakil si kastaba ha ahaatee waa magac deegaanka ee ma ahan magac qowmiyadeed ee ay leeyihiin waxaa jira 1.4 milyan oo canfar ah ee ku nool 3 dal Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea tirakoobkii Ethiopia ee 2007 waxaa lagu sheegay 1,276,374 canfarta dalka Ethiopia qiyaasta dadka canfarta ee Djibouti lama hubo ila wareedyo ku abtirsada 45% dadka reer Djibouti waa canfarta laakiin World Factbook waxa ay soo jeedinaysaa kaliya 35% si guud ila wareedyada qaar waxa ay tibaaxaan in ay canfartu ka badan yihiin 5 milyan qaramada midoobay 2009 waxa ay ku qiyaas tirada dadka reer Djibouti ee canfarta 2009 inay ahaayeen 864 oo qof canfarta boqolkiiba 40 345,600 si kastaba ha ahaatee qabiilka Ciise ee Soomaalida ayaa ku xoog badan Djibouti qaybta koowaad ee barnaamijka tixanaha ah ee aan uga warramayo taariikhda canfarta halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray tarjumay idilana socodsiinayay intaan kaga kulmi doono qaybta labaad waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo